الحمد لله. إذا كان حقا لما كان وياه إذا كان حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أخيارا وسلم تسليما كثيرا. ما دورنا إلهي بأسكاله أنت ترابط الأكتهي أو مهد أحبان ربك عالمين كأدرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هل كان كالسلام يا أمد الصوماليات meel kasta oo ay daafaha caalamka ka joogto. waxa waaye ilaahay wixii sharaxa naga duwo ummadda Soomaaliyeedna ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu maaragtay qulubtooda uu daahiriyo dad islaam ah oo kitaabkooda iyo sunnahooda ku socda oo ku sugan ilaahay inuu ka dhigo ayaan maaragtay u weydiinaynaa dhammaanteenba. waxa weeye dadka Soomaaliyeed baan rabaa halkaan inaan kala hadlo. ruug cadaagii soo rogaal celi qadka waa ka maqnaa bil iyo 25 bari baan ka maqnaa qadka ayada oo ay jireen daruufo fara badan oo maaragtay ku xeeran xaaladda Soomaaliya marxalado badan bay soo madhay 30 sano gacan ajaanib bay ku jirtay xaqiiqda markaan ka hadalno dhibaato aan dadkaas iyo waddankaas u marina ma jirin. waxaynu maanta marka ka hadlaynaa dad badan baa waxay aaminsan yihiin oo ay ka dhaadhacsan tahay oo ku goodiyahaya oo miidiyada aan ka aragnay oo maaragtay hadalla soo tabinhaya dowladda Soomaaliya ee madaxweynaha uu u yahay سيد محمد عبد الله محمد فرماجو حفظ الله. وحوية ومدى الصوماليات وحن وشيغيا هذا عرك أعداء هذا قولك قشان هذا حواريسان متكفي عنه إذن مصر مرأيو حلي جمانت أن كتشرنو سياسيين تينا دون إياه إنا يوحو قامية مدلمده iyo mid mataqaanaa loo dhigi karaa kuma u jiro. dad baa waxay leeyihiin 8 Febraayo ha la gaaro. anigu khudbadii madaxweynaha iyo shirkii dhuusamareeb iyo shirkii hore oo mataqaan madaxtooyada 17 September iyo shirarkii ka horeeyo dhuusamareeb 1 samareeb 1 samareeb 2 samareeb 3 waxa ka hadli maayo waa laga dhirigsan yahay. miidiyada ayaa waxay ka hadlaysay ugu yaraan
lixdan iyo laba saacadood oo hadda ina dhaafay dibad iyo daakhilba waa laga hadlo rag iyo dumarba waa laga hadlo mucaarad iyo maxaafidba waa laga hadlo xiise looma qabo war la qabo marka laakiin waxaan soomaali u sheegayaa oo anigu hadda meeshaan u soo fariista xaqaa'iga jira baan ka hadlaya dadka Soomaaliyeed dad badan baa waxay aaminsan yihiin 8 February ha la gaaro 8 February ha la gaaro waa in qori looga saara waa inuu doorsadiisa qaata waa inuu mataqaanaa yeela wax aan sharaf lahayn oo karaamo lahayn oo aan garanayn dastuurka dawladdu ku dhisan tahay ama dawladaha caalamku ay ku dhisan yihiin looga iyo sharciga dawladdu ku dhisan tahay ama dawladaha caalamku ay ku dhisan yihiin xeer dawladeed sharci dawladeed dawlad waxay tahay majority dadka Soomaaliyeed ma yaqaana meediyadan ka arka ma garanayaan dawlad bay maqleen dawladii qabiil bay u qabaan meeshan qabiil ma yaal qaran Soomaaliyeed bay yaala qarankaana ummadan iyada dhisatay heshiis ummadeed baa lagu dhisay baarlamaanka heshiis ummadeed baa lagu soo doortay 4.5 baa lagu soo doortay baarlamaanka waa sax waa dastuuri madaxweynihii buu doortay madaxweynihina xukuumadii buu soo dhisay si sharci ah oo sharciga inoo yaala ee dastuurka waafaqsan ayay dawladda maanta Soomaaliya qaranka dhisan ku dhisanta madaxweynuhu wuxuu ku joogaa dastuur mataqaanaa muxuu ahaye taqaran dastuur Soomaaliyeed ee sharci ah buu ku joogaa madaxweynuhu mar hore wuxuu diyaariyey adigu sanad ka hor one man one vote in la qabto dawlad goboleedyadu waa diideen waa u gudbiyey baarlamaanku u gudbiyey baarlamaanku waa ka dooday waa shiileen waa rogrogeen saxda sidii ahayd oo mataqaanaa xaqa ahayd ee dastuurka waafaqsanayd ayay ku soo ansixiyeen oo u soo gudbiyeen golaha fulinta madaxweynuhuna sayn ku saaray golaha fulinta oo dhan waa taagnaayeen life baan uga jeednay life baan naloo tusa markii mataqaanaa lasoo birbergaraynayey ee madaxweynuhu uu maaragtay saxiixayay waa u jeednay indhaha yagaan ugu jeednay waa legal waa sharci waa dastuuri waa wax ummadu ku heshiisay madaxweynuhu xoog kuma qabsan waddanka qor caaraddi kuma qabsan daaqadda kama soo gelin straight legal ah ee dastuuri ah buu campaign ku galay waa ku raayay waa lagu wareejiyey sharcigay waafaqsan tahay intaasuba waxa maanta marka cayda iyo xumaanta iyo goodiga iyo dhaarta iyo bakbakda iyo jaahilnimada iyo badownimada keenaya waa dad aan dawlad garanayn waa dad aan sharci garanayn waa dad aan dastuur garanayn waa saas weeye kuwa waaweyn oo 60 jir ah oo ciraale baan ark oo xabad baa looga saaraya waay xabadda maxaa keenay waay maxaa keenaya xabadda maxabad buu ku qabsaday meesha yes hadduu xabad ku qabsaday waxaan idiin sheegayaa maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah 7 waxyaalood oo uu isku kulansaday maanta nin siyaasiya oo leh oo waddanka ku aamini karaa ma jirto ama February 8 ha la gaaro ama January 9 ha la gaaro we don't care sharci dastuuriya buu ku maamulayaa waddanka baarlamaanku waa joogaya ilaa baarlamaan kale lasoo dhiso oo la dhaariyo maalintii baarlamaanka kale la dhaariye 11aad baa baarlamaanka iyagu dhacaya inta hore waa shaqaynaya waa available isagaana waddanka ka mas'uula iyo sharciga sharci dejinta hay'adda sharci dejinta waay waddanka oo dhan isaga xukuma mid mucaarada iyo mid muxuu ahaye muxaafidaba baarlamaankaasaa dadka xukuma dadkaa doortay waa afgarad heshiis bulshada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba baarlamaanka qabiil walba nin baa ugu jira oo matala asagaana ka mas'uulka qabiilka asagaa ka mas'uula kan hadda Axmed Madoobe oo mataqaanaa qarandumiska kan mataqaanaa muxuu ahayeeto dani oo qarandumiska Muuse Bixi oo qarandumisa kulli baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed iyo golaha sanaytarka aqalka sare ayaa wakiiladoodii ku jiraan ayagaana ka mas'uula mara hadli kara qabqablayaashu ma hadli kara baarlamaanka la xisaabtamaya hadday hadal doonayaan baarlamaanka ha hortagaan oo ha la xisaabtamaan ilaa wakiiladoodii baa fadhiya ayagu soo doorteen
madaxweynaha maadaama baarlamaankii uu shaqaynayo ilaa baarlamaanka la yimaado madaxweynaha iyo xukuumaddiisa xukuumadda fulintu sideedii bay u shaqaynaysaa ilaa madaxweyne kale la doorto oo madaxweynahaas tartanka looga raayo oo nin kale raayo oo la dhaariyo oo waddanka lagu wareejiyo inta ka horraysa maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah ayaa maamulahaya waddanka waana sandulle ninkii hadlayaaba ha hadlee ya ninkii hadlayaaba ha hadlee hogaamiyaha waddanku maxamed farmaajo weeye looga loo noqonayo ilaa sharci madaxweyne la helayo waddanka xukumahaya waa maxamed cabdullaahi farmaajo sharci low ah oo dastuuriga u leh xukuumaddiisuna waa shaqaynaysaa hay-adaha dowladda oo dhan waa shaqaynaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qayb kastoo uu yahaba waa shaqaynaya waa legal wax aan legal ma jiraan dadka marka hadaaqahaya waxaan leeyahay sharciga soo barto dastuurkiina barta dowladda waxay ku dhisan tahay barta heshiis ummadeed inay ku taagan tahay barta ilaa dowlad kala beddesho inay shaqaynaysa barta jaahil haddaad tihiin miidiyada ha naga kubaaraynina ee jooga guryihiin maqarafoon ubaad la ordaysaan iyo youtube iyo facebook jaahil baad tihiin waxba garan maysiin sharci ma taqaaniin ummadda khaldan baan la hadlaya ummadda khaldan ee soomaaliyeed ee goodiga iyo dhaarta ku jira maxamed farmaajo waar weli ilaahay soo diray weeye 7 waxyaalood oo uu leeyahay oo uu nagu maamulahayay oo aan ka aragnay oo siyaasiyiinta kale ayna lahayn buu leeyahay awalu waa nin wadani weeye wadanimadana waa loo dhashaa ma loo dhashaa wadani mise waa la iska dhigi karaa wadani waa loo dhashaaye sideeba la isaga dhigi karaa wadani weeye aabihiis iyo hooyadiisa ku soo anqariyey wadani baa dhalay 9 sano biyo muunta ku xirraa oo talyaanna u xirraa oo lowyaha ku beelo ku curyaanay yaa soo barbaarsaday wax soo baray wadaninida baray ku hana qaadiyey ku koriyey qalbigiisa iyo maskaxdiisa ku shubay waalidkiin ha idinku shubo wadaninimada hana idinku barbaariyeen oo guryihiina kala soo barbaar waa wadani number 1 dad badan oo lamidu waa jiraan laakiin farmaajo number 1 wey waa wadani wadaacad خائن معه توق معه خائن معه تريتر معه توق معها وعدالة وانين إيماعي وانين سمير بدن وانين دادكي سؤول بريا وانين تحبيك إيا تعيلك عند قلبكيسا أفكيسا كده هانا يسووها وكوها الله يو إنو ودنكيسا تعيل يهي دادكيسا تعيل يهي قف والبا أتناسولها هي تضبات شير بو أتناسولي تضبات شير بو دني إيا أحمد مدوبي أتناسولي وايو إياغا إيا كو خصبيي أو كو بوشكرينيي wax walba inuu ka tanaasulo 4.1 buu ka tanaasulo aduu samareeb 1 2 3 buu samareeb 1 2 3 buu ka tanaasulo hadeer maalintii dhaweyd buu ka tanaasulo cabdi xaashi bal minuu dani siciid cabdullaahi dani muraafaqa soomaaliya koob ka qaaday inuu yahay oon rabbi garanayn oon soomaali garanayn oon dal garanayn oon daacadnimo garanayn on innaba dhiig Soomaaliyeed ku jirin wuxuu madaxweynaha ku qasbay oo bulgeedii uga dhigay cabdi xaashi oo uu og yahay inuu taraytar yahay khaa'in wadan yahay xamar u joogo sida uu qarax iyo dhibaato iyo dib u dhac iyo qaran dumisnimo uu xamar u joogay 25 sano xamar si uu kala furfurayo shacabka xamar dhibaatadooda buu kow ka yahay سيلان يا وكيل شيء كبعدنا مصبيحة وكيش أسقي أفبلق كي أفقد عيدا بلق سنايو سوري يقرأ الأهو مقعي السيبان إلو مركب وشنتي سيساسا نصوقات وهرمحوها مقعيس أدوكو أسقى يمت كلا يدور بدن عرب كل فن ما يدد بدن ورير وقوية وواحد شوقة dhibaato u jooga xamar
mushaarna qaato canshuurta shacabka mushaar loo siiyo xildhibaano ka tirsan wasiirra ka tirsan ma garanaysaa baa jooga waana la soconnaa dhibaatadooda cabdi xaashaa gudoomiye uu ah cabdi xaashi waxaa jooga dad fara badan dowlada hadiyada hay-adaha dowladda ku jira baarlamaanka ku jira aqalka fulinta ku jira ra'iisul wasaare ku-xigeen ah wasiirka warfaafinta ah oo sharaf leh oo karaamo leh oo wadaniyiin ah oo doonaya waddanka kanu inuu badbaado dowlad xoog leh ka dhisanto soomaaliya isu timaado waqooyi iyo koonfur la heshiiyo sideenii hore lagu soo noqdo sacabka la isi saaro xalaal ku dhashay oo reer waqooyi ah baa jooga bal aan inkirna kuwaas dani wuxuu ku qasbay maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah in uu sanka uga duleeyo cabdi xaashi oo qaa'in wadana oo qaran dumisa cabdi xaashi cabdullaahi waa qaa'in wadan waana qaran dumis wixii dowladda soo maray traitor buu ahaa carabuhu u shaqaynaya marna etoobiya u shaqaynaya waa la yaqaan moogiisi baa qoran taariikhdiisi waa qoran tamam masabidanayo beenna ka sheegimay okay caddayna waa keeni doonaa waa idin tusi doonaa halkaana idinka soo tusahaya isagoo indhashiina anoo af jabaqsan oo etoobiyana traitor u ah sacuudi carabiyana traitor u ah qaa'in wadan weeye buu dani wuxuu ku qasbay inuu u tanaasulo madaxweynaha qaranku ee sharafta iyo karaamada leh markaasuu wuxuu yidhi inti fidma imaan lahay oo halkaa mataqan shirkaasu burburi lahaa bal adigu liq dacarda waa dacad waa sibir waa cusbo waa wax kastoo kharaar ayuu liqay maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah ilaahay aakhiriga adduunba ha xafido sabirkiisa dabeecad dhaqan wanaagiisa iimaankiisa mataqaanaa sabirkii wuxuu la yimid maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu la yimid sabirkii nebi ayuubu la yimid wax ka samir badan waxaynu aragnay dee rasuulladii iyo nebiyadii ilaahay unbaynu aragnay laakiin dadka caadiga ah ee normalka ah oo samirkaasoo kala leh waa yaryaha wallaahi bilaahi culummada muftiga ah waa weyn ee cilmiga aad iyo aad u dhex gashay waa laga yaabaa inay samirkaasoo kala leedahay laakiin qof caadi ah ee samirka maxamed cabdullaahi farmaajo uu samray tanaasulay dhibriyey xishooday liqay ilaa uu gabiir cidlaa soo istaagay dalka iyo dadka buu u turhaye axmed madoobe iyo deni waa u yaqaan wuxuu kula dhaqmi lahaa waa u yaqaanaa laakiin waxay gacanta kula jiraan ee mas-uulle ka yihiin dad aad u fara badan oo jubbaland iyo puntland degan ee soomaaliyeed ee madaxweynuhu uu madaxweyne u yahay maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah uu mas-uul ka yahay ayay xambaarsan yihiin wax walba wuxuu ku liqay waa shacabka soomaaliyeed ee puntland iyo jubbaland degan markaasaa deni ilaa waa caqli badan male deni hadduu caqli badan leeyahay maanta puntland gaajo looguma dhinteen oo ugu horumarsanaa gobollada soomaaliya oo 21 sano dhisnaa oo wax walba ummadda soomaaliyeed lagu soo qaxay oo ummaddii soomaaliyeed oo dhan badbaadisay ayuu gobol maanta gaajo uma ay dhinteen dadkeeda dekadihi aeroboorradana imaaraad ma xukumeen iyaguna magan kama ahaadeen gacmaha saas laysugu xiray kii nuuq dhahana xabiskuma u rideen marka soomaalinimadiisu inayna waxba ka jirin halkaasay ka caddaanaysaa kaasuu u gondo qabtay cabdi xaashi maxaa ka galay ma somalilan buu xukumaa deni maxaa ka quseeya somalilan cabdi xaashi hadduu somalilan u dhashay maxaa ka quseeya imise xil waddanka ka haysa ama dowladda ka haysa oo somalilaynaha jooga yaa wakiishay yuu wakiilkaya reer puntlandkii wakiishay ee yiri adaa naga wakiileh maayarow maayarkii 4 sano soo socota adiga weeye xaguu ku ogaa maalintii la doortay buuxabad iyo dhac iyo dil iyo dhiig iyo godob iyo kala dirdir iyo 7 gobol uu kala eriyey iyo qabiil iyo takoor iyo qabyaalad iyo dhac iyo tuuganimo iyo hoog iyo ba puntland maalintaasaa ugu horreysay saciid cabdullaahi deni maalintuu qabsadaa ugu horreysay gobol barwaaqo saa u jiifo oo dadkiisu shaqaysanayo stress iyo buuq iyo gaajo uusan qabin oo mataqaanaa saa dekadda adduunka u kala degahayo ayuu soo fariistay sanad gudihiis yay ku masalifeen sanad dadkii shacabkii puntland sanad gudihiisay ku masalifeen
bil isagoon haysan buu horta baarlamaanka ku laayay 5 qof ununka uga jara weli laysma weydiin dhiiggaas oo dhiig maydkoodii oo yaal oo dhiiggii dhex yaalla baarlamaanka dhexdiisa ayuu doorasho ku sameeyey guddoomiyihii intuu tuuray oo yiri gacanta taago tuura dhooma daareed maydkii baa yaalla xataa wiilashu ma uu asturin inuusan islaam ahayn halkaasa kaaga caddaanays inuusan diin haysan halkaasa kaaga caddaanays inuusan soomaali ahayn halkaasa kaaga caddaanays war wiilasha aasa war wiilashu kamac bay ku dhinteen ama waaba dille hal la aaso ilaa isagaa meesha xukumay ma u oran ku korwoodu yiri ku korwooda ma tigree baa waddanka haysta ya mise italyan iyo ingiriis baa waddanka haysta shacabka puntland sida ugu degdeg badan waa inay ninkan isaga qabtaan waa taraytar waa qarandubis soomaali ma aha islaamna meel dhaqankiisu kama soo galo islaam dhaqankiisu meel kama soo galo waxaa loo baahan yahay qofku hadduu islaam yahay dhiigga dadka inuu xaaraan ka yahay xoolaha dadku inay xaaraan ka yihiin godobta inay xaaraan ka tahay dowladda mas-uulka ka ah inuu la shaqeeyo uusan khayaanin imaaraad iyo kenya u shaqeeya soomaaliya uma shaqeeyo maxay reer puntland marka ku sakaansanahayaan oo hoosta uga jiraan oo u haystaan iska tuuraan idin leeyahay reer puntland oo ninkaas soomaaliyana noloshiisa intuu nool yahay maayar waa darajo weyne xataa isbasiini dhulka xaaqa lagama dhigaayo dhul xaaqe soomaaliya waa uga dhammaata dowlad soomaaliyeed waa uga dhammaata halkaasaan dani ku reebahayaa dani maanta ceel isaga isku riday sharaf iyo karaamaa loo hayay ceel buu isku riday qolada uu ka dab qaato taleefanada ku hagta ee mataqaanaa imaara ee dhulkii uu ku wareejiyey ee waddanka maxaa ilihiisii dhaqaalaha ku wareejiyey ilihiisii wax soo saarka ku wareejiyey ummaddu waxay ku noolaan lahayd ku wareejiyey nimankaasuu ka dab qaataa marka reer puntland waxaan leeyahay war ninka iska qabta war magiciin jiriya ninka iska qabta war qabyaalad ha ku raacinina ma garanaysaa aaran jaambu laaluush siiya shacabka laaluush ma siiyo shacabku ha iska qabta ninkan kolle isima ma lihidino isimadiinni eya cunay reer puntland eya cunay boqor burhaan waxaan ahayn isimadiinni markay laaluush qaatay noqday baarlamaanna ma qabtaan maxaa la sheegaa marka shacabku ha iska qabta ninka ninku idin ciribtiriya iska qabta sharaftii iyo karaamadiina wuu idinka qaado reer puntland lahaayeen dhulku idinka dhiga maryihii oo dhan waa idinka dhiga wuu idin qaawiyey marka haddiina raalli ka ahayn diida oo ka hor imaada haddii kale raalli baad uga tihiin jiriidkaad ka qoslaysaan anaa idiin sheegaya runta wax runta idiin sheegaad weyden ma garanaysaan nin tuugoo la koolkoolinayo noloshayda ma arag waa tuug maxaa yeelay dekadihii iyo erboorradii iyo maxjarkii xoolaha iyo wixii oo dhan buu gata idinkoo taagan buu gata wixii odayaashii ka hadlana xabis buu ku gura qaarna assassination buu ku dilay haye waa tuug marka waa taraytar waa khaa'irun waddan oo isagoo puntland maayar ka ah ayuu u shaqaynayaa dowlado kale oo waddanka yaga u dhiibaya oo qaranka yaga duminaya oo maslaxad walba diidaya oo shir walba khilaafaya oo madaxweynihii ka shaqayn waay oo dowladdii ka shaqayn weyday oo shacabkii soomaaliyeed halkaa kaneecadii majruum gashay oo maskaxda ka fadhiisatuu nagu noqdo kaneecadii majruum gashay ee halkaa maskaxda inta sanka ka gashay halkaa fadhiisatay deedna uu u dhintay buu nagu noqday laakiin annagu u dhiman mayna waa iska qabanaynaa geed baan ku xiraynaa deni saciid cabdullaahi deni geed baan ku xiraynaa waana dhibay waana dulmiyey waana dhibay waana khayaan ummaddii soomaaliyeed oo dhan buu dhibay qarankii buu dhibay dowladnimadii buu dhimay waa ninka yiri axmed wadooban ku raacsanahay ciidanka jamhuuriyadda oo ilaaliya waddanka ee xuduudda ilaalinahaya yaa diyaaradaha lagu garaacaya gobolka gadow waa ninka yiri waa ku raacsanahay in laga soo bixiyo doqon habad caqliya ma lihi doqoneey ilaa in doqonu dabkama kacdee daamankay meermeerisaa qarno korkeedaa lagu fadhiyaa oo muuse bixi majruumadii uu watay muuse bixi muxuu ahaye tajeegaantii majruumaday wadatay ilaa isaga iyo ciidankiisuba waa waalan yihiin iyo xukuumaddiisuba muuse bixi waa waalan yihiin dhakhaatiirta madaxay u baahan yihin waa waasheen qarnay fadhiyaan meel 18 kilo bari iyo highland
iyo sanaag iyo sool iyo cayn muuse bixi baa gacanta kaaga dhigaye oo ilaa garowgana u fadhiya 25 ma iska qabati ma ka xoreysati gobolka aad xukunto xaniyaha hadaad leedahay xaniyaha aad gado u leedahay gado xaniyaha aad u leedahay ee intaad aragto kilomitir ku jidho daniyow waa kan oo garow aad ku hareeraysan tahay maxaa gacanta kuugu jira yaad xukuntaa aawa goboladii Puntland oo lagu dhiibay garowe iyo qardho iyo gaalkacyo haafka Puntland yaa gacantaada ku jira intii kale sheegaan baa qabsatay Muuse Biixi ee macdantii iyo dahabkiisa u guranaysa saa hobalahidow Muuse Biixi baad ka baqdayo farmaajo isku soo tagto haniya u yeelatay aabow ninka weyn aan iska celiya kan yar iga celi weeye shaqadaada fulayna saasaa lagu yaqaan bax horaysa waddanka ama nooga wareeg waddanka waryaa ka bax waddanko dhib xasaanada dhib maba istaahishid laba beri inaad xukunto Puntland ma istaahishid cunaayahow imaaraad Kenya kaad aadaysid aday ku taalla reer Puntland waxay ku dhaheen uf kuma rabno bay ku dhaheen waa ku naceen hameen iyo maalin guryaha hoostooday kaa habaaraya Soomaaliyo dhan baa ku habaarays marka kula hadalay wax ku sheegno afarta dibir dadka biidiyada soo gala waa kula hadle labadii sano ad waddanka haysanaysay waa lagu hadlay qaarna xaqdi iyo xaaraan iyo wasaqnimo bay kugu taageerayeen nimaan ogahay uu ka mid yahay ragaan ogahay iyo naaga aan ogahay ay ka mid yihiin oo bari aakhirana shalay doona adduunkana shalay doona cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda iyo jeclaysiga iyo xinka iyo xaasidnimada doqonnimada iyo waxay kugu raacsan yihiin oo dhan bari bay shallaayeen adduunkana waa shallaaya aakhirana waa shallaaya adoo kale lama sibod garayo halkaas maan Siciid Cabdullaahi Deni warkiisii ku xiray waxaa kuu soo haray ninkan kabca iyo madiina gooyey oo Axmed Maxamed Islaam la baxay asa magacu qalad yahay Axmed Maxamed Islaam waa magaca uu Soomaalida ku soo galo oo waa lay dhahaa uu yiri oo buugga ku qortay oo feyga weeye magarate anuu qabiilkiisana wax ka sheegi mayo dhalashadiisii horena waan ogahay ima qusaysa maanta inaan wax ka sheego maalin kale ka faalloonaya waxa weeye ninka kanu waxa weeye Tigree labadaa ninba Tigree baa meesha keensaday Tigreena waa dhacay magarate Tigree baa keensaday iyo kuwa Soomaalida oo Tigreedu xukuntay oo maamulaysay iyo Kenya baa keensaday meesha Axmed Madoobe wuxuu isku dayahayaa maadaama badii Soomaaliya nala ku haysto gobolka Jubbaland baddu ku aadan yahay waa dhulka biriga ah ee badda ku aadan majority badankiisu wax yar baa ka soo haraya badda markii la soo cabiro dhulka wax yar baa ka soo haraya gudaha galaya Jubbaland oo dhan Ethiopia wuxuu galaya Kenya gudaheeda taas ayuu og yahay dhiil la ku galay saxiixiina wuu saxiixay xoogaa lacagana bililiqaana waa lagu siiyey waxa uu udig iyo damleeyahay oo Kenya ku tiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxba ha ka yeelin intuu dhacayo haddaa doorashada ka yeesho waa asaga guuleysanayo waan ognahay aslanba doorasho maalintu saxiixana ya isbitaal Aga Khan baa inta la geeyey yaa la qala operation baa lagu sameeyey maalintu saxiixay Axmed Madoobe operation buu galay maalintu inta xamar ku saxiixay uu Kismaayo tagay waa loo yeeray kaalay baa la yiri waryaa Kenya isku sidaayo Aga Khan baa la geeyo dhac waa la qala waxay ka qaleen sheega balaayo iyo simikaaro uu watay oo gudaha ku watay yaa laga qala operation baan galaya waa tuu lahaa wakiil baa soo dirsanay waxa weeye markaa ma uu rabo in uu doorasho dhacdo gobolka gadana ma rabo oo caawa haddii inta loo tanaasulo lagu wareejiyo hadal kale uu keenaya hadal kale ciidanka ha laga qaado hadduu dhaho oo laga qaado kuma qancayo
weli doodiisi waa taagantahay iyo saxiixi mayo iyo doorasho dhici mayso gobolkoo dhan haddii lagu wareejiyo weli doorasho dhici mayso taagan yahay waayo waa nin dan leh waa nin la yiri badda aan ku haysano Soomaaliya biriga soo raaci doorasho haddaad ogolaato maxamed cabdullaahi farmaajo soo noqonaya mana kaa yeelayne no wax walba si aan doorashaba u dhicin wada doorasho haddayna dhicin Kenya iyo Axmed Madoobe iyo Dani ma oga miyaa inuu doorashaba haddayna dhicin forever uu haysanayo iyagay dan u ahayd inay saxiixaan oo doorasho dhacdo oo tartan yimaado waa intaasoo maxamed cabdullaahi farmaajo lagaba guulaysto fulayow guuli ku dhawayda yaa tan ku dhacday qasaarada ku dhacday ilaa jaahil ninka la yiraahdo waxa soo socda ma arke waxa markaa hortaagan buu arkaa sidii caruurtii inay saxiixaan bay ahayd goorma waa hore inay doorashada dedejiyaan oo guddiga soo xulaan oo mataqa doorasho dhacdo oo maxamed cabdullaahi farmaajo lala tartamo waa intaasoo hee laga raayay bay noqon lahayd in yow war guddiga soo xira in yow war guddiga soo xira in yow gabar xunoo agoono raja ah waxaad moodaa aayadeed haysato oo cuntada gubnoodka ku gumaysata in yow ma dhoocilaa marka in yow leeyi maxaa ma dhaamaan dhoocilaha yaan caayo marka dantiisu waa gobolka Jubbaland say ula wareegto Kenya asagu saas iska dhaadhiciyey isagana Kenya ka soo dhaadhicisay naagtan xunta ah oo ciidamada haysan jirtay ee wasiirka arrimaha dibadda ahayd ee Kenyaanka maxay ahayd magaceedii Juma waxaasaa la dhahaa haddana gaashaandhigga haysata naagtaasaa xukunta naagtaasoo amarka ka qaata asaga iyo Ismaaciil Cumar Geelle labadoodaba iyadaa xukunta oo amarka ka qaataan hawshaana waa iskula jiraan oo Ismaaciil laftirkiisu waa isaga weeye taleefanada wuu u soo diraa isna oo raalli buu uga yahay diid buu yiri diid farmaajo yuu wood gelin yuu nagu soo noqonay inaan rabnaa waxa weeye marka hadduu wood dhicinna farmaajo isagaa fadhiyahaya sharciga iyo dastuurka u ogol hadduu wood dhacana tartan buu gelayaayo waxa weeye nasiibkiisu qaadaya haddii laga raayo isagoo sharaftiisii leh oo karaamadiisii leh oo shaatigiisu nadiif u yahay oo waddankiisa iyo dadkiisu jecel yihiin oo saa farmaajo iyo geeyada annagoo ku hayna ayuu mataqaanaa laga qaadahaya oo laga raynaya ilaahay idankii lagamaba raynaya haddii kalena farmaajo waa soo noqonayaayo 99% ummadda Soomaaliyeed dibad iyo daakhil farmaajo ay rabtaa kale xaasidnimo ugu diida marka ummaddu inay namcaato oo nacdo inta taraytarka oo cadawga u shaqeyso jawaasiista ah oo laaluushka qaadato tuugta ah horeyna wadanka u dhacday haddana rabta inta hadhay farmaajo markuu ka horwareego inay biliilaqaystaan intaasaa farmaajo diidan kana yeeli mayno waa diidnay nimanka jasiiro ku shira ee dhowr iyo 10 ah iyo taraytarada magaalada jooga ee gobol kasta ka imaaday xamar saa u dhex mirqshaanlaynahay senatare iyo baarlamaani sheeganahay saas lacagta ugu daldalahaya mataqaana bishaarka u qaadanahaya dadka masaakiinta canshuurtooda lugooyadana u fadhiya xamar iyo Dani iyo Axmed Madoobe kulli black list baad gasheen waanad qoran tihiin diiwaanka laydin geliyey maalin maanta aan ahayna waa laydinka jaasaynaya Axmed Madoobe waxaan u sheegayaa reergada kuma rabaan 9 sano oo hore badda iyo dil iyo kufsi iyo cadownimo iyo xoolahood iyo gabdhahood iyo Kenya guranayso oo aad leedahay si daldala ayay ka tirsanayaan oo kugu qabeen oo aad ku samays walow Jubbaland oo dhan shacabkeedii aad wada dishay midaad cayriso midaad dishay midaad masaafiriso mid ku xiran intaasay noqday midaad dhacdo dhulkiisii ka dhacdo shalay waa maqlahay nimankii hartiga ahaayo hoogayo bacay ku hayo oo markii mareexaan kacayo uu marada u taagay may kacaan hartay hadduu baraka leeyahay maanta markii wiil laga dhameeyey oo gabar laga dhameeyey oo dhul laga dhameeyey oo beer laga dhameeyey oo xoolo laga dhameeyey oo bagsagxadda uu soo dhigay Axmed Madoobe bay haddaan hartinahay dhibtaasaan qabnaa kana nala yeela waa meeqasan 8 sano qabsanaya oo qabiil ku raaciyay kab
sideed sanay kab ku daba socdeen kab maxay tahay kabti soo lama eedin waxa weeye axmed madoobe waajibkiisii buu hela horta hadduu gada tago iska dhaafa kismaayo ugu soo dhacayaan kismaayo reergadu kismaayo ugu soo dhacayaan wallaahi bilaahi tallaahi hadduu soo dhaafa dhobley axmed madoobe waa jiri jiray in la oranaya ama ciidan uu leeyahay uu soo dhaafiyo waxaan u sheegayaa marka dadka Soomaaliyeed labada nin ee qarannimada yada baabi'inaya ee jiritaanka yaga baabi'inaya ee mustaqbalka yaga baabi'inaya ee cadawga u shaqeeya iyagoo kuwa badan oo jaajuusiin joogaan oo cadawga u shaqeeyo haddana labada nin ee kaneecadii majruum gashay nugu noqday waa axmed madoobe iyo ninka la dhaho Siciid Deni ummadda Soomaaliyeed Siciid Deni iyo axmed madoobe ha laga qabto si degdeg ah waa inta laaba looga qaada dhibaatada hadda intay noo geysteen inta ay soo wadaan baa ka badan waa doqono waxaan ciriiqsi ahayn ma taqaano baa ku dhacday sharaf dhaca ku dhacday ummaddii baa nacday meel walbaa laga habaarayaa meel walba waxaad haddaad gasho miidiyada naxdin baad u dhimanaysaa nimanka habaarka ku socda cayda ku socota balaayada ku socota habre madow mar baa laga dhigayo naasihii dhaceen waa nacayb loo qabo iyagaana kasbaday ee dadku ma dulmiyeen waxaan axmed islaan u sheegaya gobolka gado ma lihid adugu kumana adalan jubbooyinkana ma lihid kuma adalan xoog baa Tigree iyo Kenya kugu dhibeen iyo dulliyadii Soomaaliyeed ee ay xukumeen Tigree iyo Kenya soo sheeganayay dawladdii ku meel gaarka ah baanu madax ganayo maxay tahay waxaan ka nahay ma taqaanaa ra'iisul wasaare fake ah baan ka nahay u dhahaye dawladdii Sheekh Shariif oo midkii xumaayo waa nin waalan bay waxay dhahan waa professor Soomaalidu inta waalan professor bay ugu magac dadhaa malaha waaliday waxay moodeen in professor lagu noqdo Gandhi mid la lahaayo waalan oo toddobada habaar oo Soomaaliya oo dhan qaba kii u ahaa muxuu ahaa Sheekh Shariif ra'iisul wasaaraha kii u ahaa magaciisa muxuu ahaa baba garanaya keebu ahaa waa maqlay keebu ahaa marka war iloobay xaaraanka magaciisii marka waxa weeye nimankaas baa u gacan geliyey gobolka isagoo al-shabaab ah isagoo markii horena Tigreega u ahaa jaajuus oo shabaab noqday oo xakiimtii ay ka dhigteen maxay hay'ato gudoomiye ku xigeen oo duurka ku jiro wiilashii Soomaaliyeed dhameeyay ayaa Tigree inta soo qaatay tir gobolkan cidlada ah oo asaaniya ah oo lagu wax horeeyo la waayay baan ku qabanaynaa deg agtana mari waana inaad Kenya ku soo dadhaabaa la yiri gobolka reasonkii loogu dhiibay baa ahaa gobolka Kenya waa inaad ku soo dadhaa because badii annaga ku qabsanay Soomaaliya niman idinka ha noo saxiixay Sheekh Shariif iyo in Cabdishakuur yaa saxiixay badda ragii ka mid yihiin ninkan la leeyahay Gandhina waa ku jiraayo waalan oo professorka waalan ah iyo kuwa kale oo badan waxa loo baahan yahay marka inuu Axmed Madoobe maanka geliyo gobolka Jubbaland Malihid Soomaalida qof qolo walba gobol bay ku dhalatay awowgeed ku dhashay xudumahoodii ku aasan yihiin ay u badan yihiin inkastoo la kala degin gobolada ay u badan yihiin ay mata ka soo jeedaan ku magacaaban yihiin xagee ku dhalatay markii lagu dhaw waxaad leedahay waxaan ku dhashay Qarajaqood waxaan ku dhashay Jigjiga waxaan ku dhashay muxuu ahayeeto Dirir Dhabe waxaan ku dhashay Galaadi waxaan ku dhashay Gaalkacyo waxaan ku dhashay Hargeysa waxaan ku dhashay Kismaayo waxaan ku dhashay Xamar day qof walba meesha ku dhashay sheegaya waan adigu xagee ku dhalatay baadiyaha Qarajaqood baa ku dhalatay maxaa Kismaayo dadka ugu gumaadaysa maxaa ka galay Tigree baa ku keenay waana laga saaraya Kenyana annaga dhulka yaga male bad iyo birina ma qaadan karno gabar intay naga nooshay gada iska dhaafay gado muwaadiniinta Soomaaliyeed hambalyaan u dirayaa reer gado 12 jeer oo hambalyo ah ayaan reer gado u diraya garabkiinaan taagannahay bartaa ka mees waa dhageystay hadalladiinii
waa dhegaystay go'aankiinni waa dhegaystay meeqaankaad maraysaan halkaa ka wada dib ha uga soo noqonayna halkaa difaaca gobolka ciidankiinnina geesuhu idinka taagan yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haram cad iyo gorgor iyo dana baa idinla jooga watatacow idinka baqi maayo wadna ilaahay baa idin abuuray geesiyada reer gado wadaniyiinta reer gado ma kala reebayo gobolka gado dadka degan oo dhan waa geesiyada soomaaliya waa xalaal cunka soomaaliya waa wadaniyiinta soomaaliya waa xabiibka soomaaliya midyadan ka barta nasab dhalay gob a weeye soomaalida dadka ugu gobsan weeye ugu wadanisan weeye ugu rixinsan weeye ugu caqli badan weeye anaa idin sheegaa beed maxay taraysaa iyo faan waxba ma taro ha ka hagraninina geesinimadooda reer gadaha ka hagraninina kosi boodgareeya waa walaalihiin kosi boodgareeyo ugu hambalyeeye hambalyaan leeyahay reer gado jiroo jooga waa isku kin hadlaynayna idinkaanana difaaciya insha allah intaad noo joogtaan sankadhuudhi iyo qolo kale midna ka baqi mahayo ka baqi mahayo ilaahay waa kan ogyahay soomaaliya oo dhan waa xorayn ka dhaa garabkana annagaa idin siinayno garabkiina taagan hiil iyo hooba noolaada axmed madoobena iska qabta agagaarkiisa hadduu yimaado isaga cabbaas indhakorig kan luujaha leh oo odaga musqusha u geeya kirliga biyaha ugu qaada magaciisi maaye kolli xabad salaanta ka saara noo qabiil noo in hebel noo jifo dila waa taraytaree laaya maca axmed madoobaha laaya axmed madoobe waxaan u sheegayaa gobolka jubbaland soomaali baa iska leh mana u dhiibi kadib kenya kama aqbalayo aduun baa ku baxaya wiilashan yaryarka oo aad ka soo kaxaysatay ee new booliska ahaa ee jeel ogaadeen ummadda ku ciqaabi jiray oo maanta kismaayo jeelka weyn inta looga dhisay ku ciqaabaya sidii jeel ogaadeen ugu ciqaabaya kismaayo jeelka ku yaala ya ee laga dhisay ingiriisku ka dhisay ee lagu cadaabayo dadka soomaaliyeed nimanka ku cadaabaya waa nimanka ku cadaabaya jeelka kismaayo maanta nimanka ku cadaabaya shacabka soomaaliyeed oon loo kala aabadayn rag iyo dumar iyo qabiil hebel iyo caruur iyo waayeel iyo aan loo kala aabadayn waa nimankii new bolis oo jeel ogaadeen cabdi ilay dadka ugu cadaabi jiray waxaa loo soo wareejiyay kismaayo waa laydin og yahay warbixintiinni waana soo gaadhay waana la idinku imaanayaa waana la idinku gumaadahayaa haaraam caad iyo gorgor baa idinku imaanahaya voodku intuu socdo baa la idinku imaanaya axmed madoobgana dhan wuu dhacay wax uu la jooga male waa nin caadiya waa nin shacaba gobernatoore ma aha gobol ma xukumo mas-uul wuxuu ka yahay nimanka uu new booliska ah uu ka keensaday qarajaqood ee ilma adeeradiisa ee dadka u adoonsan u adoomiyey ee dadka u laaya ee taraytarada ah ee dadka u jirdila ee xabadda dadka salaanta uga dhifta waxaasuu xukumaa reer jubbaland ma xukumo 100 qabiil baa degan jubbaland 100kiiba waa qayliya waana idin naceen dagaal bayna idinla galhayaan iska celiyo xaniya haddaad leediin iska celiyo reer jubbaland waa israaceen ciidankuna waa idiin soo dhutunahaya in yar buu idiin soo jeedaa axmed madoobe adaa maanta isu keenay xabad in lagula raadiyo sida indhakoray wantad inaad noqoto ee lagu baafiyo adaa isu keenay adaad kasbaday markee uhuru amarkiisii baad raacday amarkii ummadda soomaaliyeed ma ad raacin waa diiday taraytar qaa'in ah oo tuug ah oo dabadhilifa oo jaajuusa oo waxaa tahay an diin iyo islaamnimo meel la ka soo gelin iyo soomaalinimo ilaahay inuu ka adag yahay bay kaaga adag yihiin reer jubbaland ayadooman ciidan lagu soo dirin yaa shacabka jubbaland baa iska kaa qabanaya adiyo afarka tawiil ee sumaysan boysinka ah ee baabi'iyey dadkii marka axmed madoobow waxaa la yidhi balaayo ninkii raadsadaa waa helaa maxamed cabdulaahi farmaajo gobolka gado kuma siin karo hadduu maanta kuu tanasudo oo ku dhow waa kugu wareejiye awood uu kugu wareejiye ma laha gobolka gada dad baale dadkii baana difaacanaya maxamed cabdulaahi farmaajona kaagama qaadi karo kumana siin karo waxna kama qaban karo haddaadan u gelayn ama aadan ku caalaqayn reexaan iyo reerahaasu la dhashay waxba kama qaban karo dadkii lahaabaa u taagan oo difaacanayay 30 sano waddanku burbursanaa
ومرة الشباب حبدا كوهي مرة تقريع حبدا كوهي مرة ما تقنا أذوق حبدا كويسي مرة كان يحبدا كويسي أفرت هذا قال بريقة ودهي إيه ريشو بالله أفرت هذا قال بيصدق كاسنا كتير كل يقول دولة أسوق جرمن وصومالي أسوق جرمن وإلهي ما هن نفر أسوق جرمن ده يلا عرق أفرت هذا قال بيكتير ويسوع الانجري ما قرنيسا مركا أحمد مدوبو ودنك إساقا بح بورصد هذا كقادو كسمايو أفرت هذا ويلا كان يلا هذا وما قرنش قوضو سيدا دع أما كان يميل هيدين جيستو وحان إذين شيغيا إنتان لا يدين كو إيمان أحمد مدوبي إيا ويلا شاوة تريت الرادة أهو إنتان لا يدين كو إيمان كسمايو شندديه إنك قاتا واحد مسؤول كتيه إيا واحد معمول وكسمايو كتيرو odayaasha noo cadeeyay ma jiraan kuwii horena waa noo cadeeyay kuwii hartina daraad bay noo sheegeen dadka un bay gumaadaan bay dheheen dhul boob beera boob xoolo boob gabdha kufsi hoog iyo ba dhuxul gub adduun bay nagu baabi'iyeen jeelal bay leeyihiin dadkii baa dhammaaday dheheen wax caaqiba lahuma harin iyo wax ogle waxaan kusoo gabagabaynayaa warkayga dadka nimanka hotel jasiira ku shira ee gobolkan mataqaanaa koonfurta u dhashay ee labadii nin oo madaxda soo noqotay ay ka mid yihiin iyo dhowr iyo tobanka mataqaanaa halkaa maalin walba ku shirahayo waxaan idiin sheegayaa wax aad qaadi ka dhaan ma jiro arrintiinnu waxay ku egtahay jaajuusnimo urur diineedna waad ku socotaan been ah oo fayga oo daamo jadiid ah way kulli idinkula jiraan inta taraytarada ah oo qaa'imin waddankan ururkan la yiraahdo daamo jadiid waa laga warhayaa wuu fashilmay dowladdu waa ku toog haysaa waa ku daba jidhaa waxaad waddanka ka tihiin ma laha madaxweyne waad soo madheen laakiin madaxweyne fayga isagoo ahba baad idinku karaamadii iska qaadeen oo ummaddii aad shala dhacdeen oo disheen oo gabdhihii gaddeen oo baddi gaddeen oo adduun rogteen oo dhulalkii dhacdeen kuwii dowladda dhacdeen kuwii shacabka dhacdeen shacabku dhul ku gumaadeen ku xasuuqdeen wax allaaliyo wixii dhaqaale soo galay 4 sano xasan shiikhayey aad liqdeen ummaddii xoolahoodii iyo wixii waddanka lagu caawiyeyba laydinku cafin mayo never ever in laydinku cafiya how malaynina cid aad wax ka qaadi kadhaa iyo cid aad mataqaana maanta dagaal ku bilaabi kadhaana ma jirto afarta dibir haram cad iyo danab iyo gorgor baa ku wareegsan tallaabo nin qaadi kara idinkuma jiro tallaabo horaa looga gaashaantay 4 sanaa la dhisahaya 40,000 oo ciidana baa maanta Soomaaliya xaadir ku ah oo xoogga dalka ah oo intaasoo nooc ah mala hadiinaan ogeyn ana idiin sheegayo nimanka jasiira ku shiro taraytarada ahu dagaal baan bilaamayna 8 dahal la gaaro baabuurtii maxamed siyaad bare dowladdiisii allah u naxariistee oo caarcaariyaysatay oo daxalaysatay oo mid shaaga rogi karaba aan lagu arag oo qoryihii dheerdheereeyo lidka diyaaradaha oo kulligoodba daxalaysto maaru xidhay ayay soo bandhigeen oo midiyada soo dhigeen war kuwa casriyan hubku karin baa ardagoon keena miinadu ma kadho oo hubka culusoo lagu tuuraa ma karaan oo waa casri waa hubka ugu casrisan ee NATO baa dowladdu haysataa war malagiina ha raadsanina war shacabka dhibaataha u keeninina war shacabka ha barakicinina war ha isku dayina war wallaahi bina noolaanay oo billaahi bina noolaanay oo tallaahi bina nabad dambe ku aisha dambe cunay maanta haddaad dhahdaan xamar baan dagaal ka dhigaynaa nimankiinaas mataqaana jasiiro ku shiro war la'aan baa idin haysaa diyaaradihii baa marka korkeeda markabka saaran yaalla taraanka ahaayo aan darawalku wadin kenyana isma dhaqaajin kadho adinkuna xamar kama bilaabi kadhaan qulqulata yar bal isku daya nafay ninku doona kuwaa afkaad ka hadashaan waad shidhaa maalin walba cuntaad cuntaan baaq baan soo saaray madaxtooyadan toos u gelaynaa ma ku dhacdaa xataa laamiga hormar ma imaan kadhaan waa kana gobolada aad sheegataan oo u dhalateen oo cadala iyo ilaa jawhar inta u dhaxaysa al-shabaab baa maalin walba baabuurta ku qarxiya shacabkii oo baabuurta saa u saaran oo tuulo kale u socda yaa lagu qarxiyaa
gabdhihii baa lala degayaa wiilashii baa lala degayaa abrii baa bannaanka lagu fuulaya odayaashii baa la fuulaya maad iyaga u arxantaan maad ka hadashaan inta shir qabataan maad dhahdaan gobolka aan u dhalanay ee cadale iyo dhulkii abgaaloo dhan niman baa bah ka dhigay dad iyo dunyaba waa ina mariye ee bal dad ha loo diro guddi ha loo diro bal ha lasoo qaymeeyo bal ha lasoo fiiriyo see looga hortegi karaa dowladda ciidan ha u dirdho aan dowladda adsanno in ciidan loo diro annagu waxaan awoodna aan ku caawinno dadkaas al-shabaab baabi'iyo gobol dhan degan gobol dhan oo abgaaloo dhan gobolka u badan yahay maxamed siyaa dharaa habad ka toorayna soo tuura habad labada indhood baa firir laydinkaga dhifanaya labada indhood wiilal yaryaroo gorgora iyo haramcad baa indhaha idinkala baxaya edab iyo akhlaaq ku jooga ordaha gobolkiina shabaab ka horaysa dadkiina dhaawaca isbitaallada keena ee shabaab baabuurta inta ku qarxiyey baadiyaha yaalla iyo tuulooyinka aan daawada lahayn lacagay ku soo dhoofaan oo xamar ku yimaadaanna waayey baxa lacagta aad jaajuuska ku qaadataan ordaha dadkaas mataqaanaa shacabkaa ku caqeela oo isbitaallada ku keena oo u gurmada oo guddi inta samaysaan maryacalasoo kale oo guddiga hiiraan oo kale ah dadka ha ka celiyaan u sameeya guddi dhallinyaradan aad dowladda kusoo jahaynaysaan u sameeya urur shacabka abgaalo ilaa cadale ilaa jawhar degano al-shabaab dhameeyey oo cirib tirmay waa cirib tirmeen waa baabi'een dadkaad ku faantaa wiilashii aad qoriga usoo dhiibi lahaydeen oo dowladda idinkula diriri lahaa reerahoodii waa rogmadeen iyagii waa rogmadeen shabaab baa qaarna kacaysto xabadaha u dhiibtay oo ay u radhan yihiin oo reerkiina ku laynaya qaarna waaba la dilayba waa la deldelay waxaan sheegayaa nimanka jasiiro ku shira ee magaca hawiye sheegta ee hawiye magaca ka hadlaynaya ee qabiil dhan dhaamay war hawiye waa wadani soomaaliya weeye dowlad awsa dhisina ma dhisanto magaca hawiyo aad ku qaraabanaysaan iyo qabyaaladana joojiya awrkacsi waa dhammaaday magac qabiil waa dhammaaday reer hebel waa dhammaatay waa laga soo gurmay goormaa laga tegay warkaas waa laga soo gudbay 2021 baa la marahayaa jaahilow 2021 wax qabiil ah qabyaalad ah oo soomaaliya ka shaqeeya ma jiraan xataa laaluushkii aad siin jireen $60 ciyaalkii waa naceen waayo haramcad bay ka cabsanahayaan qorina idinma qaadahayaan mudaharaadna idinma samaynahayaan idinkay keli idinku tahay ama guryihiina nabad ku joogtaa oona isku daandaansan dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo inta dowlad la dhisahaya asagaa idin xukuma cayda iyo dacaayadda iyo mataqaana warka beenta ah oo turxaanta le iyo waxa qurunka ah aad kula wareegaysaan ilaa dumarka waad ka liidataan daldala oo meelaha ka daldala barfosorkaanu karaamo alla u dhameeyey soomaaliyo dhan buu karaamo ku haystaa iyo caalamka oo dhan haba caydiinu kama tarayso waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa wax allaale iyo waxa taray tara ee mataqaanaa ummadda ilaahay u diiday ee qarandumiska ee ummadda inay dhaqaaqda u diiday ee meel walba dowladda afxumo iyo akhlaaq xumo la taagan waxa weeye dani iyo axmed madoobe haddii la xiro qolada jasiira ma hadlayso muuse biixina ma hadlayo ismaaciil cumar geelle na ma hadlayo maxaa yeelay waxay ogaanayaan dowladdu inay wax qaban kadho sharcigu inuu shaqaynayay ogaanayaan marka waxa weeye mijo dhooqo midba mar baa la baxshaaye baldani iyo axmed madoobe ha laga qabto waddanka waa iga dardaaran waxaan madaxweynahayga ugu hambalyaynayaa maxamed cabdullaahi farmaajo khudbaddii caaqibada lahayd ee caalamku ka yaabay sharafteeda iyo karaamadeeda ee shalay xaqiiqda taabanaysay xaqiiqda danka hadalka ahayd mas-uuliyaddu hayay ka hadlaysay siduu u qabtay oo u wanaajiyey ka hadlaysay inuu nimankaa gacanta kala bixi waayey inuu dowladdii ka wadi waayey inuu voodkii ka socodsiin waayey inay geesaha qabteen waa dani iyo axmed madoobe qoorqoor lafta gareen iyo wiilkan hadda soo baxay goodlaawe halyayga soo baxay maanta ee soomaaliya ku soo kordhay ee awal aanaan aqoon hebel hebel goodlaawe waa nin cajaa'ibah waxaan ka dhadhansaday oo intii yarayda uu joogay aan ka dareemay generaal daa'uud matalkii generaal daa'uud inuu noo joogo goodlaawow meeshii generaal daa'uud baad joogtaa waad noogu qoran tahay
وكوكو قيمينينا وحنوكو قبو ودن كاغا دفاعو دال كاغا دولة دادا دفاعو بال دهر قال سيدي جنرال داو قد لا وو هل يجا صوبحي بنكو بحشا هل يجا صوبحي ها انو سو كورداي siyaasadeenna soo galay dowladnimadeenna soo galay maamulada Soomaaliya soo galay good laawe qoor lafta gareen magaciin ha jiro wadaniin baatiin la labada awal baan aqoonay waxaan aqoon good laawe inuu igu soo kordhay aniga wadaniin baatiin sharaf baan leedihiin isaan idin haynaa alla yaa isag baan idin leenahay halka ka daadiyo maamulada aad haysaan waxaad ahaydeen baa soo baxday wadaniin baa tihiin Soomaali asliyaad tihiin gob baa tihiin saddexdiina maamul goboleed gob baa tihiin good laawe qoor lafta gareen noolaadaan idin leeyahay wadaniin yahay garabkiinaan taagan is iyo karaamiya sharaf baan idin haynaa ilaahaygii deni iyo axmed madoobe xaarkay cunahayeen idinka duway baana mahad leh u shukrinaqa idinku hagaajiyay wadaninimada iyo wanaaga iyo iska sharafta dawladda madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed hambal yaan idin leeyahay axmed madoobe iyo saciid cabdullaahi deni ha laga qabto wadanka ha laga qabto si degdeg ah wadanka looga qabto intaasaan caawa hadalkaygu ku soo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ummadda Soomaaliyeed ilaahay maslaxad khayr qabta ha dhex dhigo taraytarka qaa'in wadanka Allah naga qabto inta wanaagsan oo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha yaga maxaa hay'ata Roble ra'iisul wasaare ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka sharaf iyo karaaman u haynaa nabadbaadiya maanta ummadda Soomaaliyeed dal iyo dad iyo diinba baarlamaano nabadbaadi madaxdayadooy nabadbaadi votkuna waa dhacaya insha Allah sidii dawladdu ballan qaaday Roble wuxuu yiri waa dhacaya doon waa dhacaya madaxweynuhuna wuxuu yiri kama harayno wali fadhi baa ii dhiman buu dhamaa ana quusan wala way dhulka ila dhaceen labadii doqon cawaanta aha nin goboho gunu rifayso noqday baarlamaankuna gudoomiyuhu noo sheegay wadka inuu dhacayo qalaasan kala waxa weeye marka khayr iyo abshir baan inoo rajeynaya haddaan ummadda Soomaaliyeed meelaan joognaba dawladdeena kor Allah ka dhigo madaxweynaheena kor Allah ka dhigo baarlamaankeena kor Allah ka dhigo xukuumadeena oo dhan kor Allah ka dhigo ummadda Soomaaliyeed kor Allah ka dhigo cadawga Allah naga dulqaado cadawga mid gudaha iyo mid dibadda ilaahay ha nooga heli waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo nasiibku ha noo soo kaa celiyo awoodda ilaahay iyo naxariistiisa ha noo soo kaa celiso waxaan rajaynaynaa 100% inaad noo soo noqoto haddaad soo noqon weydo Soomaaliya waa laga samrahayaa tacsi baa loo dhigahayaa nabaday calankaana qofba xoogaha goosto waa isku dhamaatay